السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد سامة اسكا ورما مفيعنتهين الصحابة وان idin salaamayaa salaanka bacdi waxaan rabaa wax yar inaan idinla qaybsado saddex waxyaalood. Horta mid waxa waaye aad baa u mahadsantihiin kiliibkii ugu dambeeyey oon lifeka kusoo gala si fiican baad horta noo sheer garayseen una commonkiina iyo waxa positivekiina aad baa ugu mahadsantihiin. dadku dee iskuma jiro qof walbaba ra'yigiisu hadlayaa. dad badan intiina badan maasha allah meel dheer waa ka tuurteen waana geyseen. aad baa u mahadsantihiin saxaabtayda waa idin jeclahay. aad iyo aad baan idin mahadinayaa. waxaan rabaa wax yar inaan idinla qaybsado caawa saddex waxyaaladood oo ah kow ilmaheena horta ma dhegeysanaa ma dhegeysanaayo ma yacnihii dareenkooda ama markay wax noo sheegayaan dareenkooda markay noo sheegayaan wax ma dhegeysanaa. tan kale waxa waaye goormo ayaanu mataqaanaa maadaama videogii hore ku socday cuntadii baan daba socdaa goormo ayaanu cuntada aan anaku ilmaha ka hor cuni karnaa. tan saddexaad waxa weeyaan waxa waaye yacnihii qofkii yacnihii su-aal qaba oo maaragtay inay su-aal qaba inuu yacnihii ila soo xiriiri karo isoo weydiin karo oo isoo weydiisan karo oo telefoonku wuxuu ku yaalaa meesha kore. marka qofkii su-aal raba buu kasoo hadli karaa wuu isoo weydiin karaa. haddii aan ku hormaro ilmaheena marka ay wax noo sheegayaan ma dhegeysanaa. yacnihii ilmaha mararka qaarkood habeenkii markaad sariirta geysid oo kale waxaa laga yaabaa inay dhahaan waan baqayaa ama monster baan arkaa ama waa cabsanayaa ama wagciisi. had iyo jeer wax ma jiraan maxaad ka baqaysaa lama yiraahdo. yacni ha biqin waxba ma jiraan waxaas wax kama jiraan weligood hadalkooda yaan la dhayalsani. marka weydii waxay ka baqayaan ma waxbaa kugu dhacay. waxaa laga yaabaa in bulin lagu sameeyo hadday in mataqaanaa macalimadda ay ku taagan tahay in yacnihii wax jiraan oo soo food saaray oo wax lagu sameeyey ama ay wax ka baqayaan oo hadday brograamo fiirsadeen cabsi oo guri ka fiirsadeen. marka ilmaha had iyo jeer si ayaan u ogaano xaaladooda nabadgelyo waa inaanu dhegeysanaa dhagaheena u raaraaricinaa oo aan hadalkooda aan la isdhaafinin ama hadalkooda aan laga soo qaadinin. waa ilmo maaragtay waa iska leeyahay ilmuhu wax iskama dhahaane ogaada. ilmuhu waxa waaye waxay wax badan markay ka hadlayaan had iyo jeer ma aha wax iskama dhahaan runtii wax iskama dhahaan. mar waa maray wax raadinayaan oo iyagu information raadinayaan. mar waa mar ay rabaan mataqaanaa inay maaragtay adiga wax kaa samaystaan. marna waa mare oo ay siday waxay rabaan ay ku helaan. marna waxa weeyaan wax ku soo food saaray oo laga yaabo inay aysan haysan ka baqayaan inay kuu sheegaan ama yacni marka had iyo jeer qofka hadalkiisa aada loo qaymin oo hadal la dhihin oo lagu boorin inuu hadlo waan ku dhegeysanayaa la dhahay. ama had iyo jeer waxaa dhici kartaba inaa hadal ku dhaho aad tiraahdo orod tag hadda mashquul baan ahay hadda ha ii sheegin mar kale ii sheeg. waxaas oo dhan markaa ilmaha dhahno ilmuhu waxay keenayaan marka inay wixii ceshadaan oo dhahaan hadalkaaga lama qiimeynaayo. cid oo maaragtay hadalkaaga qiimeynaysaa ma jirto. ma awal baa lagaa hoos qaadayay. yacni waxay gaarayaan heer ay iyaga isxiraan. markaan ay wax kuu sheegayaan waa maray furan yihiin oo ay rabaan inay wax kuu sheegaan. waxay u ooyayaan inaa qof dareemo oo fahma oo dhaha haye waxa looga soo saaraana ilmaha had iyo jeer in loo sheekeeyo. ilmaha sidoodaba marka waxa laga soo saaraya ilmaha xirma oo xiran hadalka isku xira
waa loo sheekeeyaa sheekooyin baa looga sheekeeyaa sheekooyinkaas ay wax ku soo saaraan marka ilmahaaga ku dadaala inaad la sheekaysataan oo aad sheekooyin uga soo sheekaysaan oo sheekooyinka weliba caruurta looga sheekeeyo qofkan buugaag u akhriyi karinin buugta wararkaa looga soo saaraa buugta marka loo akhriyayo sheekooyinkii storytellinka ama sheekooyinka ilmaha waxbaa looga soo saaraa oo waxaadan ogeyn oo dhan baad kaga ogaanaysaa laakiin waxa kale oo aad ilmahaaga warkagood kaga ogaanaysaa haddaad sheeko caruureyda uga sheekaysid oo aad uga sheekaysid sheekooyinkan sheeko caruureyda maaragtay baad wax kaga soo saari kartaa ayagana oo aad uga sheekaysid marka ha lagu dadaalo in ilmaha maaragtaa marka ay ka hadlaayaan dareenkooda aad iyo aad loogu yacnihii dhaganuglaado oo aad loola socdo oo looga jawaabo ama su-aal laga weydiiyo waa inaadan hadalka ku xirin because adiga isbiri hadalka ay kaa xiranayaan ogaada xataa adaan ujeedadaadu ahayn inaad hadalka ku xirtid haddaadan markiiba aadan ka jawaabin ama 2 jeer aad tiraahday hadda ma aha oo aadan markiiba ka jawaabin waxaa imaanaysa inuu ilmahaasu isxiro use wax dambe kuu sheegin goormaan caruurta ka cuni karnaa caruurta cuntada waxa weeyaan markaan caruurta cuntada aan ka hor cuni karno waa marka aan rabno cunto caafimaad ah ama healthy ah cagaar ku jiro iyo qudaar aan rabno inaan ilmaheena barno markaan barayno sidii roor moodal ahaan say noogu daydaan waa inaan cuntadii ka hor cunaa tusnaa annaka aan cunaa dhana sidaa ay arkaan ilaa ilmahaanu acuudu billaah waxa weeyaan waxyaalaha cajiibka ahaan leeyahay maaragtay maasha allah ilaahay ilmaha uu siiyey ilmahan innaga action kasto aan qaadno bay u fiirsanayaan hadday hadal noqoto hadday noqoto dhaqan hadday noqoto dhaqdhaqaaq hadday cunto cun noqoto qaabka aan u fariisano wax kasta iyagu waa ummad wax baranaysa marka waxa aan wax ku bari karnaa waxa weeye cuntadii inaan markaan cunayno intaan ka hor cunno markaan rabno qudaarta inaan barno ilmahana qudaarta iyo cuntada healthiga ah loogu dadaalo say u dhadhamaysa mugta allah gooska gadaashiisay ka dhadhamaysa allah cuntadaanu fiicana allah say u fiican tahay allah cuntadii ma inaan uga dhignaa oo maaragtay markaad siinaysid kuwa yaryar mar baan kasoo hadlay daraayo kasii yaryar kuwaasayto marka markii la baraayo cuntada waa hooyadu way cuni kartaa iyo aabuhu way ka hor cuni karaan cuntada mataqaanaa haddaad doontidna adna marbaa afka gashanaysa ayagana margacadooda marbaad afka u gelinaysa inta isu soo agdhigataa taas markaa waxa weeyaan taa waa in lagu booriyaa maaragtay markaad ku boorinaysid inay cuntada cunaan waad samayn kartaa midda ugu dambeyso aan rabo inaan yacnihii aan kusoo gunaado waxa waaye dad badan baa isoo weydiiya su-aalo haddii su-aalaha markiiba aan idinkaga soo jawaabin macnaheedu ma aha inaana idiin soo jawaabayn inta badan su-aalaha waa kasoo jawaabaa marka waxa weeyaan su-aalihiina waa soo weydiin kartaan numberkuna wuxuu ku qoran yahay bageka meesha waa asaga numberka ku qoran yahay marka su-aalaha waa soo weydiin kartaan waxaan kale aan rabaa inaan meesha ku daro qorshaan soo wadaa laakiin gadaal baan idinkala qaybsanaya qorsho waxaan soo wadaa inaan sameeyo membership labada beryaha soo socda asbuucan soo hadda intuusan dhammaanin ama marka asbuucan dhammaado waxaan soo wadaa insha allah inaan membership sameeyo oo group membership markaan sameeyana waxaan doonayaa inaan maaragtay wax badan oo fiican aan maaragtay aan keeno casharo gaagaaban baan keenayaa insha allah membershipka dadka keliyana u keeni doonaa casharadaas gaagaaban haddii alla idmo oo aan yacnihii dhiib u galaayo casharadaas aan ahayn wacdigelin aan ahayn casharadii aan dhexgalayo xirfadihii iyo waxaasayto iyo aan si fiican aan ula qaybsanayo marka insha allah maaragtay waa idin salaamay waana idin jeclahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu